isticmaalayaasha ChatGPT oo sii ziyaadayo waana abkii ugu horeeyay abid oo asagoo 5 maalmood oo kaliya hawada ku jiro ee ku biirtay 1 milyan oo qof 2 bilood gudahoodna wuxuu ku helay 100 milyan oo isticmaalayaal ah halka TikTok ay ku qaadatay in 100 milyan uu helo 9 bilood Instagram waxay ku qaadatay 30 bilood CEO-ga ChatGPT ayaa sheegay inuu cabsi ka muujinayo artificial intelligence-ga ama AI-ga I think people should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. If I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job. haddaba waa maxay sababta keentay cabsidan وعبد الغفار جماديد oo idin leh mar kale meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkeena waxaan kaga hadlaynaa sida aad iskaga diiwaan gelin lahayd ChatGPT oo aad uga mid noqon lahayd boqolaalka milyan ee isticmaalayso ChatGPT si aad uga faa'iideysato haddaba ChatGPT waa artificial intelligence la soo bandhigay sanadkii hadda aan soo dhaafnay November waxaana iska leh oo hindistay shirkadda lagu magacaabo OpenAI ChatGPT wuxuu bedelay gabi ahaan isticmaalka internetka asagoo qalqal badan ku furay shirkadda Google sababtoo ah ChatGPT wuxuu u sameeysan yahay in su'aal aad weydiiso kadibna jawaab uu ku siiyo bilihii ugu dambeeyana wuxuu noqday application aad loo isticmaalo su'aalo badan la weydiiyo shirkadda Google waxay ka baqday inay lumiso title-ka ay ku hogaaminaysay internet searching-ka oo 90% Google ayaa ku hogaaminayso internet searching laakiin waqtiyadan dambe ChatGPT ayay dadka aad u isticmaalayeen qaabka loo programmiyay ayaa ah in su'aal aad weydiiso kadibna uu ku siiyo jawaab aad u faahfaahsan adigoo aanan waqti badan ka lumin faa'iidooyinka ChatGPT inta ugu badan waxa ka faa'iideystay ardayda jaamacadaha iyo iskuulaadka su'aal walba oo ku saabsan waxbarashada xisaabaadka kombiyuutarada juqraafiga waad weydiinaysaa meeshaasna waxaad ka helaysaa jawaabo faahfaahsan oo saxan faa'iidooyinkiisana waxa kamid ah inaad ka hesho jawaab walba oo ku saabsan aqoon guud haddii aad tahay arday aad ayuu kugu anfacayaa isticmaalkiisa sidoo kale cilmiga kombiyuutaraadka codingka programmingka wuxuu kaloo ka anfacayaa inaad weydiiso talooyin caafimaad ChatGPT-na waxaad u adeegsan kartaa inuu kuu noqdo fitness coach ama coachkaaga haddii aad u baahan tahay inaad miisaan iska dhinto oo iscaateyso ama haddii aad u baahan tahay inaad iscayiliso ama isweyneyso ChatGPT ayaa coach kuu noqonayo oo waxaad weydiinaysaa su'aalaha ku saabsan miisaan iska wuxuuna ku siinayaa jawaabo faahfaahsan sidoo kale wuxuu ka saacideynayaa letter writing ama inaad u adeegsato qorista leetooyinka kala duwan haddii aad application shaqo dalbanayso ama codsiyo kala duwan aad rabto inaad qorato ChatGPT ayaa ka saacideynayo sidoo kale wuxuu ku diyaarinayaa CV-yada kala duwan midda kale oo iyadana aadka muhiimka u ah ChatGPT wuxuu yaqaanaa luqad walba oo official ah oo maanta dunida looga hadlo luqadaada ayaad wax ku weydiinaysaa waliba af Soomaaliga uu yaqaano waa af Soomaali aad u saxan haddii la barbar dhigo midka Google ku isticmaalo af Soomaaliga oo Google ka isticmaalo waxa ku jira khaladaad yar yar laakiin ChatGPT af Soomaaligiisa markaan eegay waa af Soomaali aad u saxan haddaba aan u imaana cabsida laga qabo waa maxay cabsida laga muujinayo maxaa meel walba looga hadalhayaa cabsida laga qabo artificial intelligence-ga sii horumarayso ChatGPT, I think, has illustrated to people just how advanced AI has become. Much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. Because if one company has spoken for people manages to develop godlike digital... Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. CEO-ga ChatGPT ayaa sheegay in laftarkiisa uu cabsi ka qabo artificial intelligence-ga mar uu wareysi siinaya TV. People should be happy that we're a little bit scared of this. I think people should be You're happy. a little bit scared. A little bit, yeah, You of course. personally. If I said I were not, you should either not trust me or be very unhappy I'm in this job. cabsida laga qaba artificial intelligence-ga ma ahan in bini'aadamka ay dhaawac u geysanayaan ama dilayaan ama waxyaabo waaweyn ay geysanayaan sababtoo ah waxay ku shaqeeyaan program loogu talagalay oo wixii markaas lagu shubay oo lagu programmiyo oo laga damacsan yahay kaliya ayay qabanayaan waxay sheegeen robotyada ama artificial intelligence-ga inay ka maqan tahay ama laga ilaaliyay emotion ama inay qaadaan dareen oo sidaan wada ogsoonahay qofka marka laga xanaajiyo oo dareenkiisa la kiciyo ayuu falcelin sameeyaa falcelintaas oo ka dhalan karto dhaawac ama waxyaabo halis ah laakiin robotyada waa laga ilaaliyay emotion ama inay dareen qaadaan haddaba cabsida ay ka muujinayaan waxay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsiga dunida waxaana laga baqayaa mustaqbalka inay la wareegaan ay gacantooda u gasho dhammaan shaqooyinka ay bini'aadamka hayeen haddadaanba shaqooyin badan ayay la wareegeen oo bini'aadamka ayay meesha ka saareen sida customer care-ka maqaayadaha in laga adeego oo hadda robotyada waxaa loo isticmaalaa waiters ama in maqaayadaha ay ka shaqeeyaan sidoo kale shaqooyinka xamaalka ama warehouse-ka ayaga ayaa hadda la wareegayo oo tijaabooyin badan ayaa la sameeyay
mar walba oo artificial intelligence la sii hormariyo waxa meesha ka sii baxayo shaqooyinka ay bini'aadamka hayeen waxa iyadana meesha ka sii baxayso in bini'aadamka ay lumiyaan creativity ama in maskaxdooda sida la rabay aysan u isticmaalin tusaale yar aan ku siiyo inta aysan soo bixin taleefanadan iyo kombiyuutaraadka dadka maskaxdooda ay aad u isticmaali jireen laakiin hadda marka teknolojiyada la sii hormariyay waxa hoos u dhac ku imaaday caqliga bini'aadamka midda kale oo ayadana la yaab kale hadda ayayba toos u bilaabatay in artificial intelligence iyo bini'aadamka ay maxkamad iska dacweeyaan shirkad lagu magacaabo Do Not Pay ayaa waxay sheegtay inay sameysay robot lawyer ah waxayna sheegeen robotkan lawyerka ah kiiska uu qabto in 90% uu ku guuleysanayo asagoo isticmaalayo artificial intelligence but robo lawyers next month a robot actually an artificial intelligence computer app will argue its first case in court. I know what you are thinking, the robot in a suit in a courtroom. Attorneys could change from humans to artificial intelligence. That's right. A startup revealed that its first robot lawyer. laakiin isla markiiba robotki waxa dacwad ku furay shirkad u dooda arrimaha lowga iyo qaanuunka oo lagu magacaabo Edlison waxayna ku haystaan dacwad ah in lawyerkan uu jabiyay qaanuunka u yaalay lowga sida wada ogsoonahay waxa jira laysan caalami ah oo la bixiyo oo la siiyo dadka soo dhigtay lowga ama medicineka qofkii marka uu soo dhigtay cilmiga jaamacadda uu soo dhameeyo shahaadada uu qaato waa la soo qiimeeyaa qiimeyntaas kadib waxa la siiyaa laysan aqoonsi ah shirkadan dacweysa robotka lawyerka ahna waxay sheegeen inuusan jaamacad soo dhigan aqoonsiga laysankaasna uusan haysan oo hadda dunidu waxay maraysaa in bini'aadamka iyo robotyada isku qabsadaan dacwad waxaana ku xigi doono robotyo ayagana sheegto inay yihiin dhakhaatiir meeshaasna waxaa kusoo dhammaan doono shaqooyinkii ay bini'aadamka hayeen haddaba meeshaas ayaa cabsida ka jirtaa waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka waxaana kugu tusi doonaa sidaad uga mid noqon lahayd isticmaalayaasha ChatGPT waxaad u baahan tahay oo kaliya emailkaaga ayaad ku isticmaalaysaa google-ka ayaad ku qoraysaa chat OpenAI -ChatGPT linkiga ayaan kuu soo dhigi doonaa hoos wuxuu toos kuu geenayaa webka ChatGPT waad ku dhufanaysaa waxa kuu soo baxaya sidaan login ama sign up maadaama hadda aad toos isku diiwaangelinayso meeshan aad ku dhufanaysaa wuxuu ku leeyahay emailkaaga geli emailkaaga ayaad gelinaysaa kadib password ayaad u samaysanaysaa gooni ah oo aanan ahayn passwordka emailkaaga continue ayaad leedahay kadib si toos ah ayuu ku keenayaa meeshan waxaadna si official ah uga mid noqotay isticmaalayaasha ChatGPT meeshan kore wuxuu kugu sharxayaa example-ka ama inaad su'aal weydiiso qaabka aad su'aalaha u weydiin lahayd hoos ayaad u soo degaysaa meeshan ay ku qoran tahay search ayaad waxaad ku qoraysaa wax alla waxaad u baahan tahay oo jecleed inaad weydiiso ChatGPT hadda ayaan ku bilaabaynaa waxaana weydiinaynaa su'aal ah af Soomaaliga ma taqaanaa sidaan ayuuna noo soo saaray in uu yaqaano luqadda af Soomaaliga luqad walbana uu ku hadlo hadda wakaas waxaad ka mid tahay isticmaalayaasha ChatGPT wuuna ku anfici doonaa ee ka faa'iideyso waliba adigoo kula sheekeysanayo luqadaada af Soomaaliga ah muuqaalkeenan intaas ayuu noogu egyahay haddii aad naga cusub tahay soo dhawow haddii aad nagala socoto YouTube-kana gacmo furan ku soo dhawow sidoo kale haddii aad nagala socoto qaybta Facebook-gana soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay